Bismillahi Rahmani Rahiim dhamaan ardayda Soomaaliyeed kusoo dhawaada janaalka waxbarashada Ibre Solution. Insha Allah awoodi la turaalka noqda waxaa iskala shaqeyn doonaa maadada Carabiga ah fasalka afraad ee dugsiga sare imtixaankii wasaaradda waxbarashada sanadka ugu dambeeyay qaatay 2003 qaybta koowaad ardayay waxaa naga rabaa qeexan oo soo socota inaan akhrisano kadibna markaas aan ka jawaabno su'aalaha. Marka maadaama xogaa waqti uu gaaban yahay waxaan ka jawaabeynaa insha Allah su'aalaha ka jawaabeynaa. Su'aalahana waxaa lagu soo dhaxbay ardayay waxaa akhrisanay marka hore Carabiga yarka inta kugu qoran akhrisanay qeexdan kadibna waxaa ka soo dhaxbay su'aalahan jawaabahooda meesha ka dhaxlaysa. Su'aasha koowaad waxay ku leedahay ma dowru teknolojiya fi casrina al-xaali waa maxay teknolojiyada doorka markaas ay ku leedahay waqtiga markaas hadda ay joogno. Ardayda jawaabtu waxay noqonaysaa waa dowrun facaalan fi jamiici majaalaat al-xayaat. Jawaabta saas ay noqonaysaa teknolojiyada doorka ay leedahay waxaa waaye waa dowrun facaalan fi jamiici majaalaat al-xayaat oo dhammaan dhinacyada markaas nolosha ka muuqdo. Sidoo kale ardayda su'aasha labaad waxay ku leedahay teknolojiya al-macluumaat teknolojiyada markaas macluumaadka la yaqtasiro kuma gaabno fi jaanibi mucayan qayb markaas gaar ah wadax daalika arrinkaas caday. Ardayda su'aasha labaad jawaabteedu waxay noqonaysaa bal yamassu mukhtaliful jawaanib. Jawaabtaas ay noqonaysaa bal yamassu mukhtaliful jawaanib. Jawaabtaan ay noqonaysaa oo dhinac gaar kuma kaabno oo waxay taabanaysaa dhinacyo markaas kala duwan waay. Sidoo kale ardayda su'aasha saddexaad waxay ku leedahay teknolojiya silaaxun duu haddayni calil daalika. Teknolojiyada waa hub markaas oo laba af leh oo ama waa sayf ama hub laba af leh marka waxaa laga rabaa calil daalika arrinka sababay. Ardayda jawaabtu waxay noqonaysaa li'annaha yamkinu istikhdamuha fil khayri wash-shar. Jawaabtu saas waaye waxaa suuragal ah maadaama oo hub laba af leh ay tahay waxaa suuragal ah markaas in loo adeegsado xumaanta sidoo kalena waxaa loo adeegsan karaa samaanta waa loo adeegsan karaa. Su'aasha afraad waxay ku leedahay ardayda kelimatu teknolojiya kalimatun ajnabiyatun mu'rabatun. Kelmadda oo teknolojiya waa kelmad markaas oo ajnabi ah oo la carabiyay. Fama hiya al-kalimatu allati tuqaabiluha fil arabiyya. Haddii carabi aan u fiirino waa tay kelmadda qaabilayso technology. Technology waa markaas magac la iska carabiyay. Magaca qaabilaya ardayda waxaa waaye at-taqniya. Magacana qaabilaya at-taqniya qaabilaya. Arday meesha waxaa nagu dhamaaday qaybtii koowaad faqradiisa alif aan u dhamaatay waxa u gudbeynaa faqrada oo markaas ba u gudbeynaa. Faqrada labaad ee faqrada ba arday waxaa lagu dhahay istakhraj min al-qid'ati ma ya'ti. Qid'adan soo socoto waxaa kala soo baxdaa waxaan soo socdo qid'adaha soo marna waxaa kala soo baxdaa ma ya'ti wax soo socdo. Waxaa saaran markaas 8 darajo saaran waxaa laga rabaa muraadif ash-shabakatu al-caalamiyya. Waxaa laga rabaa ash-shabakatu al-caalamiyya eray markaas ama kelmad la macno ah sheeg. Arday waxaa la macno ah oo casharka la ka helaynaa qid'adii haddii aan ku laabnaa ka helaynaa shabakatul cankabutiyya la macno ah. Sidoo kale midka labaad waxay ku leedahay waxaa laga rabaa tashbiih maca adaati. Waxaa laga rabaa in aad tashbiih keentid iyo sidoo kale adawaadkiisa inaad keentid. Arday casharkeena waa ka helaynaa oo waxaa waaye ka macrifa oo kale qid'ada ka helaynaa ka macrifatun oo kale waa kaafkaas waxaa ah tashbiih. Sidoo kale arday midka saddexaad waxaa waaye waxaa laga rabaa inaad sheegtid xarfu jarrin in aad kala soo dhaxbayso qid'ada ama qoraalka noo qornaa xarfu jarrin xaraf jar ah ama xaraf hoos dhigan
oo maca ism majruur oo la xiriirsaday isim markaasi oo majruur oo la jaray. Arday in badan oo ku jira qidcadaha soo marnay waxaa ka mid ah waxyaabaha qidcada ku soo aragnay oo xaraf jar iyo majruur laga helayo min xayaatin oo kala ka mid ah. Min waa xarafka jarka ah, xayaatin waa majruurki. Sidoo kale arday waxaa ugu dambeeyo qaybtaani oo faqrada ba waxaa ugu dambeeyo waxaa laga rabaa waxaa lagu dhahay casharka waxaa kala soo dhex baxdaa cibaaratun tadul cibaaro ama jumlad markaasi oo caddeyn u ah calaa anna teknolojiya daraha wa nafcaha marbuuda in markaasi oo xumaanteeda ama dhibaatadeeda iyo markaasi faa'iidadeeda inay ku xiran tahay fi istiqdaamihi adeegsigeeda cibaaro oo arrinkaas daliil u ah kala soo baxa lagu dhahay casharka. Arday cibaaradaasna waxay noqonaysaa oo cibaaradii ugu dambeysay oo hadda aan qaadanaynay oo ah التكنولوجيا سلاح ذو حدين بأنها سلاح ذو حدين تكنولوجيadu waa hub markaasi laba af leh. Sidaa waxaa ugu gudubnay qaybtii koowaad faqradiisa ba waxaa ugu gudbaynaa qaybta koowaad faqrada ja haati من القطعة جمع ما يأتي. haddana waxaan ku laabanaynaa isla qidcadii aan soo kor nooga qornaa ku laabanaynaa. Waxaa laga rabaa waxaa kala soo baxdaa lagu dhahay qidcada oo ku qoran jamcu ma ya'ti waxyaabaha hadda soo socdo aan sheegi doono jamcooda. Koow waxaa ugu horeyso majaal ugu horeyso jamceeda maxaa waaye waxaa ka helaysaa qidcada ka helaysaa majaalaad waa jamceeda. Sidoo kale midka labaad waxaa waaye oo laga rabo jamciisa inaad la imaatid almacluuma ereygaas jamciisa la imaaw. Ereygaas jamciisa wuxuu noqonaa macluumaad oo noqonaa. Sidoo kale arday meesha waxaa ugu gudubnaa qaybtii koowaad waxaa ugu gudbaynaa qaybtii labaad ee imtixaanka waana jawaabta saxda ah dooro. midka koowaad yanqasimu al-adab bixasbi luqatihi ilaa adabku wuxuu u qaybsamaa haddii markaasi loo fiiriyo luqadiisa haddii loo fiiriyo wuxuu u qaybsamaa jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka alif oo ah qismayni. Sidoo kale midka labaad oo gabagabada waxaa waaye ashicru diini shicirka loo yaqaano huwa fanun waa fani oo min funuuni shicri al-ghinaa'i ka mid ah shicirka ghinaa'iga ah likownihi ahaanshihiisa murtabitan oo ahaaday mid markaasi ku xiran. Arday jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa xarafka alif oo ah bil mashaacir al-insaaniya ku xiran yahay mashaacirta markaasi bini aadamka. Sidoo kale su'aasha saddexaad ee sax iyo qaladka waxay ku leedahay ay al-cawaamil al-aatiya cawaamishan soo socdo saahimah waxay ka qayb qaateen marka fi tadawur al-adab al-carabi al-xadiisi horumarka oo adabka oo markaasi carabta ah oo cusub. Adabaadkaasna waxay noqonayaan cawaamishaas aan iraahday waxay noqonayaan waa isla xarafka alif oo ah al-istishraaq iyo wal-ittisaal bil gharbi. Sidoo kale arday su'aasha afraad ee sax iyo qaladka waxaa waaye ashicru alladhi yatanaawalu ad-duruuf as-siyaasiyya wal-isticmaariyya shicirka markaasi ka hadlayo waxyaabaha oo markaasi la xiriira siyaasadda iyo sidoo kale gumeysiga huwa waxaa loo yaqaanaa shicirkaasi. Jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah al-wadani shicirkaasi shicirul wadani loo yaqaanaa. Sidoo kale arday su'aashanaad sax iyo qaladka waxay ku leedahay qum lilmucallim waqih tabjiilan kaada al-mucallim an yakuuna rasuulan. yataxaddasu ash-shaacir fi hada al-bayt shaacirka ama gabyaaga wuxuu uga hadlay meeriskaani can makaanada ama darajada uu leeyahay. Jawaabtu waxay noqonaysaa waa xarafka ba oo ah al-mucallim. Sidoo kale midka lixaad waxaa noo qoran at-tafadul kasummi fi hada al-misaal misaalkaani waxaa ku sugan waa su'aasha lixaad jawaabteeda waxay noqonaysaa waa xarafka da oo ah waxaa ku sugan tashbiih ku sugan waa kaafta. Sidoo kale arday su'aasha toddobaad waxay ku leedahay ittifaaq awaaqir al-jumla fi al-xuruuf in markaasi is waafaqaan jumlada aakhriyaasheeda xuruufta
هذا midkaan tacriifun wuxuu tacriif u yahay ardayey jawaabta oo saxda waxay noqonaysaa waa midka toddobaade waa xarafka ja oo ah asajci aa loo yaqaanaa. Sidoo kale midka sideedaad waxaa waaye yaa Faadima tacallimi tadbiir almanzil. Khitaabka asaga ah fi hadhihi aljumla markii la fiiriyo jumladan waxaa ku sugan la dhahay ardayey jumladan waxaa ku sugan jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa midka sideedaad xarafka ba oo ah munaadi وحروف النداء kusugan macnaha xuruuf nidaa kusugan iyo munaadi. Sidoo kale ardayey su-aasha sagaalaad ee sax iyo qaladka waxay ku leedahay dahara ash-shicru at-tacliimiyu wuxuu soo muuqday fil casri. Jawaabta saxda waxay noqonaysaa midka sagaalaad xarafka alif oo ah cabaasi. Sidoo kale midka tobanaad aan soo gaarnay min abraas mawduucaad ash-shicru al-wadani mawduucyada markaasi oo ciwaanada ugu caansan oo shicirka oo wadaniga ka hadlo waxaa waaye waxaa kamid ah al-xurriyatu waxaa kamid ah xurriyada. Sidoo kale waxaa raaco jawaabta waxay noqonaysaa ardayey xarafka ba oo ah al-wuxda midnimada lagu hadlaa. Sidoo kale ardayey su-aasha 11aad waxay ku leedahay sax iyo qaladka amiiru shucaraa fi al-casr al-xadiis amiirka oo markaas shucarada casr al-xadiis huwa waxaa waaye xarafka ja oo ah Axmed Shawqi waaye. Sidoo kale ardayey su-aasha 12aad waxay ku leedahay tastaqdimu mucdam xuruuful jarri badanaa xuruufta jarka markaasi badankooda waxaa loo adeegsadaa litacadiyati al-ficli aa loo adeegsadaa. Jawaabta saxda waxay noqonaysaa ficilka markaasi oo loo adeegsado waxaa waaye ardayey waa xarafka waa su-aasha 12aad waa xarafka ba oo ah al-laazim ficlu laazim aa loo adeegsadaa. Sidoo kale ardayey aayadda su-aasha 13aad waxay ku leedahay qaala Allahu tacaala yawma tabyadu wujuuhun wa taswaddu wujuuh. Fi hadhihi al-aaya aayadan markaan fiirino asluubna ku sugan oo balaaqa ah yadullu cadeen ah calaa ardayey jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa su-aasha 13aad xarafka ba oo ah ad-dibaaq. Sidoo kale su-aasha 14aad min mawduucaad cilmi bayaan waxaa kamid ah cilmi bayaan mawduucyadiisa waxaa kamid ah su-aasha 14aad waaye jawaabteeda waxay noqonaysaa waa xarafka da oo ah at-tashbiih kamid ah. Sidoo kale su-aasha 15aad min qasaa'is ar-risaala ar-rasmiya waxaa kamid ah qasaa'ista oo marka risaalada rasmiga waxaa kamid ah jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa midda 15aad xarafka ja oo ah al-ijaaz. Sidoo kale su-aasha xigta oo 16aad waxaa waaye al-ghardu min at-tashbiih qaradka ama ujeedada tashbiiha yarjicu qaaliban wuxuu bilaabanaa qaalibkiisa ilaa ardayey jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah mushabbih. Sidoo kale su-aasha 17aad waxay ku leedahay yusaaqu ismul faacil min ficli thulathi calaa wasanka oo ku imaanayo waxaa waaye ardayey waa su-aasha 17aad jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa xarafka da oo ah ficaalun ku imaanaya. Sidoo kale ardayey su-aasha 18aad daash waxaa ka maqan meesha waxaa laga rabaa wasiiqatun waa wasiiqo maktuubatun ku qoran biqadri yadi ku qoran tahay bedelka ah min daabicatiha. Wasiiqadaas iyada waxaa loo yaqaanaa ardayey waxaa waaye midka asaga ah waa xarafka alif oo ah al-maqduudaat. Su-aasha 19aad sax iyo qaladka waxaa qaala Allahu tacaala walaa tudic kulla xalaafin mahiin xalaafin siiqatun waa siiqo al-mubaalaqatu lagu xeel dheeraaday calaa wasni wasankaas maxaa waaye ardayey su-aasha 19aad jawaabteeda waxay noqonaysaa xarafka da oo ah ficaalan.
sidoo kale waa midka ugu dambeeyo su'aalaha sax iyo qaladka. Ismul faacil min ficli sanaca huwa waxaa loo yaqaanaa midka asaga ah ismu faacilkiisa wuxuu noqonayaa xarafka alif oo ah saanic oo noqonaa. Ardayda waxaa filaya inaad garateen insha Allah. Waxaan rajeynayaa in markaasi aad u share gareysaan walaalihiina kale oo aadna la socotaan qaybta dambe insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Waad mahadsantihiin.